شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفصح الخلائق وعلى آله وأصحابه الذين هم أتقنوا القرآن بالإعراب وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما أنت تاريخ ذو وكودي شعبان سنة كهجرنا وكن يأفر بقول يصدن وحين كبه انتهي صدح يلباتنك بشي تدبات لبدا كن سغالك وحين شرح دونا أما آخرين دونا متنق اللي يراهدو المقدمة الأجرومية ألفي إمامك معروف مقعيس اللي يراهدو محمد ابن عبد الله ابن داود السنهاجي كنا مقعدير ابن الأجرومي. إمامك إساقا رسالة ديسا وكهد ليس فنقا نحوها أيين شرح دونا إن شاء الله. ماشي نشوغنو والقاهرة أنيقا يهد إنت دادك إلى تشوغا كتاب كاسي أجرومي شرحيسة أيينو مركاسي مانتا بالله بينا إن شاء الله. قاب كأنو آخرين دونو كتاب كوحو نقون دونا إن شاء الله قاب متوسطة أو دحدحات oo qolyaha naxwada aad ka ugu faradhuuban aad uga dhargay waxay sameynayaan. waxaad arkaysaa markay ajruumiga sharxayaan ayay ajruumigiibay waxay ka dhigayaan alfihi bay ka dhigayaan alfiyo kale. marka qofka mubtadiga way ku cuslaanaysaa. marka qaab kooban oo aan matnigii af Soomaali ku laqbaynayno amthilana aan ka bixinayno amthiladaasna marka waan i'raabaynaa si ay tadriib noogu noqoto. ala kullin inta hore waxa suuragala inay dadka ku yaraha adkaato laakiin way sahlanaan doontaa. waxaan kaloo rabaa in aan idin sheego naxwadu way sahlan tahay wayna fududahay iyo barashada cilmiga sharciga guud ahaan wax fudud weeye. wax laga naxo iyo wax laga carartoona ma aha. iyadana in saa loo ogaado weeye. dad baa waxay sameynayaan markay naxwada iyo barashadeeda ka hadlayaan waxay u sawirayaan waxaan loo dhowaan karin oo cabsi badan oo nin ka tagay oo haliyey amoogiyo aysan cid kale u dhowaan karin. naxwadu way fududahay kulligeedba haddii cilmu sana la yidhaahdaa. haddii aad damacdo inaad ku noqoto naaxi isnacay oo bala ka dhacday inaad ku noqoto haddaad doonto cilmu sana weeye. inaad carabkaada ku toosiso oo aad hadalka ku hagaajiso haddaad damacdana ajruumigaaba kugu filan iyo cimriitiga iyo mutuunta yaryarka oo muddo dheerba kugu qaadan mayso. way fududahay naxwada ayaan laga cabsanin. intaa kadib darsigeenna maanta wuxuu ka koobnaan doonaa muqaddima iyo baabul kalaam. muqaddimadii baynu bilaabi doonnaa. risaaladan magaceeda aan nidhi waa almuqaddimatu alajruumiya. fanniga naxwaha ayaa laga alifay. naxwuhuna wuxuu ka mid yahay culuumta luqada carabiga 12 baa lagu sheegaa. 12koodaaba in aad xagga kale oga baxda shardi ma aha oo aad mid walba waqti dheer ku bixiso. laakiin waxa ugu muhiimsan baa la yiraahdaa naxwaha iyo sarfiga iyo balaaqada oo naxwihiina aakhirul kalim wixii la xarakayn lahaa bay kuu sheegaysaa. sarfigana xarafka qaybihiisa kale awalkiisa iyo awsadkiisa iyo ayuu kuu sheegayaa. balaaqadana macaanidii iyay kuu sheegaysaa. waliba balaaqada in lagu sii talaxtaga ma wanaagsana in macaanida iyo bayaanka iyo laga barto ayaa wanaagsan. ninkii haddee isagu hadda maahir ku noqonayana cidna ka celin ay mayso. laakiin in shay muciiq laga dhigo oo qofka naxwadii iyo barashadii cilmiga ka hortaagan taasi arrin meesha ku jirta ma aha. marka culuumta luqada carabiga ayay naxwadu ka mid tahay. bal waxaa la dhihi karaa wa ajalluha qadran waa kan ugu sharafta badan ee ugu qiimaha badan weeye. culuumta carabiga
naxwada iyo sarfiga iyo balaaqada ayaa ugu muhiimsan baynu nidhi ammaan iyo in muhiimaddeeda la tilmaamo naxwaha waxaa inooga filan ayuha alikhwa inaynu tilmaanno salafuna saalix raximahumullah ihtimaam aad iyo aad shadiid u ah ayay siin jireen barashada naxwaha waxayna samayn jireen da'yartooda iyo ubadkooda marka ay soo kobcaanay afka ay bartaan ee ay xoogay kuray noqdaan ka maarmi kara gurigooda hooyadood iyo aabbahood ayaa loo diri jiray baadiyaha iyo qabaa'ilka carabta ee luqada carabiga sida xeesha dheer u yaqaana iyo meesha ay bahashuba ka soo unkantay meelahaasaa loo diri jiray kadibna luqadii carabigu qofkaasi mutamakin ku soo noqon jiray isagoo ku gabyaya oo ku geeraaraya ayuu soo noqon jiray kadibna markaasuu wuxuu doono uu qabsan jiray waxaa inoogu filan shaahid iyo inaynu soo deliishanno imaamu shaafici calayhi raxmatullaah imaamka isaga 23 sano ayuu baadiyaha ku noolaa oo uu luqada carabiga iyo macaanideeda soo baranayay kadibna isaga oo aan carabkiisa cidna hor istaagi karin oo shaacir ahoo adiib ahoo fasiix ah oo balaaqo badan ayuu soo noqday kadibna waad ogtihiin markuu imaamka noqday usuushii diinta iyo fiqhigii uu xumbaarsanaa ee uu dadka imaamka ugu ahaa waxaa u wehliyey carabkiisa oo toosnaa fasaaxo badan isaga oo shayga uu rabo inuu gudbiyo sida ugu fudud ee ugu xeesha dheerna u gudbin jiray saas ayaa waxay keentay in imaamku meel alla meeshuu tagaba ileen waad ogtihiin imaamku dhul badan ayuu cagta mariyey gaar ahaan dhulkan ay dadka muslimiinta addegaan oo waa kii ee ciraaq tegey ee yeman tegey ee masar tegey meel kastoo uu tago imaamka madhabkiisa iyo qaabka uu dadka wax ugu sheegayo waa lagu ta'asuri jiray atbaac iyo xer buuna yeelan jiray imaamku marka iskama imaanin arrintaase waa arrin uu kasbaday oo uu wakhti ku bixiyey imaamku calayhi raxmatullaah lisaanu xaalkiisa ayaa wuxuu odhanayaa faidaa talabta min alculuumi ajalluhaa faajalluhaa qadran muqiimu lalsuni haddaad damacdo inaad barato culuumta midka ugu sharafta badan kan ugu sharafta badan xagga nacfiga ee mustaqbalkaada ku anfici doona waa midka carabkaada toosinaya weeye isaga oo halkaa ka duulaya ayuu marka hore wakhti ku bixiyey imaamku inuu naxwaha iyo luqada carabiga uu barto alimaam yaxya ibnu muusa alcimriitiy allugawiyu alqaari almasriy marka uu tilmaamayey ahmiyadda ay naxwadu leedahay wuxuu yidhi waannaxwu awlaa awalan an yuclamaa id ilkalaamu duunahu lan yufhamaa naxwaha isaga ayaa ugu habboon owlana u ah in marka hore la barto maxaa yeelay isaga la'aantii hadalka lama fahmayaba laa ta'kul isamak wa tashrab illaban haddaadan naxwada aqoonin macnaheeda si dhaba uma fahmaysid marka in naxwada la barto iyo culuumta carabiga guud ahaan aad iyo aad baa loo ammaanay sidoo kale beydkaa ka horreeyey imaamku wuxuu leeyahay kay yafhamuu macaaniya alqur'aani wa sunnati daqiiqati almacaani naxwaha maxaa loo baranayaa waxaa loo baranayaa in macaanida qur'aanka la fahmo iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ay macaanideedu qarsoon tahay rasuululhudaa sala allahu calayhi wasallam waxba ma una qarinin wax walba waa caddeeyey ashadda albayaan diintanna iyada oo cad buu ka tegey leyluhaa ka nahaarihaa ah wa kadaalika salafu haadihi alumma si dhab ah ayay risaaladaasi nabiga ooga soo xumbaareen uguna soo gudbiyeen jiilkii ku xigay laakiin meesha aan tilmaamayno waxaa weeye qofka hadduusan luqada carabiga si xeel dheer u aqoonin
oo macaanida luqada carabiga iyo madluulaadkeeda uusan garanaynin ama baac ku lahayn wax badan baa ka qarsoomaya saasuu imaamku marka tilmaamayaa qofka hadduusan hadalka laxninin oo uusan khaldin oo uu carabkiisa toosan yahay hadalkiisana fasiix yahay waad karaamaynaysaa afhayeen baad ka dhiganaysaa hadalkaad u dhiibanaysaa bayaanaadkaad ii akhri leedahay ilmahaad u geysanaysaa hood leedahay ilmaha wax igu dhig ninka isaga waa nin la karaameeyo la iska hormariyo oo ibni aadamka agtooda sharaf kala weeye marka naxwadu waa muhiim ee ha la barto yaanan laga daalin way sahlan tahay wakhtina ha lagu bixiyo cilmiga waa bitacallum xoogay mashaqa ku jirta soomaalidu waxay tidhaahdaan nimaan shaqaysanin shaah waa ka xaaraan gurigaygaan iska fadhin kadibna caalim jaliil ah oo mas'aladu arkaba kala goynaya ayaa noqonaya waa arrin aan sax ahayn oo aan xaqiiqo ahayn wax walba dadaal bay u baahan yihiin iyo inaad ku bixiso wakhtigaada kiisa weliba qiimaha badan inaad ku bixiso ayaa loo baahan yahay intaa waxaynu oga gudbaynaa kelimadan annaxw waa masdar tacriifkeeda ayaynu sheegaynaa marka luqa ahaan waxa lagu yidhaahdo iyo istilaax ahaan waxa lagu yidhaahdo luqa ahaan maxaynu ka wadnaa istilaaxna maxaynu ka wadnaa istilaaxa luqada waxaa weeye shaygan asalkiisa waxa loo yaqaano ayaa luqa la yidhaahdaa istilaaxna waa sida loo isticmaalo maalan masjid baynu wada joognaahoo majmuucaynu nahay nin saaxiibkeena ayaa wuxuu ahaa nin xoogay adag oo qallafsan xagga maskaxda iyo dabeecada ama haddii kale xagga jir ahaan buubu u adag yahoo markii la lagdamayey iyo markii la agmaray iyo waa nin adag oo qallafsan weeye ninkiibaa waxaynu u bixinnay xajar dhagax baynu u bixinnay dhagaxaasi waxaynu odhanaynaa asal ahaan dhagax waa la yaqaannaa oo waa macruuf annaga laakiin dadkeenna ninkan dhagax u bixiyey istilaax ahaan waxaynu ku heshiinnay ninkan adaygiisa iyo qaqallafsanaantiisa inaynu magacaa dhagaxa ugu yeerno marka istilaax ahaan haddaa markaa lagu weyddiiyo lagu yidhaahdo war xajar waa maxay xajar waxaad odhanaysaa luqa ahaanna dee waa dhagaxii buuraha iyo haaraha yaallay ee macruufka ahaa laakiin annagu ninkanaan u wadnaa baad dhihi marka luqa ahaan saasaa la yidhaahdaa istilaax ahaanna kelimada saasaa la yidhaahdaa saasaad ola soconaysaa annaxwu luqa ahaan waxaa la yidhaahdaa macaanideeda waxaa ka mid ah qasdi baa ka mid ah midli baa ka mid ah jihaa ka mid ah qadar iyo miqdaar baa ka mid ah qism nin baana beyd ku kulmiyo wuxuu yidhi shaacir ah qasdun wa midlun wa jihatun miqdaaru qismun wa naqsun qaalahu alakhyaaru ninbaas intaa ku soo aruuriyey ilaa 7 waa la gaarsiiyaa marka macaanideeda waxaa ka mid ah mithl waxaad leedahay fulaan waa mithl fulaan ama haddii kale waxaad leedahay macaanideeda waxaa ka mid ah jiho ama qayb baa ka mid ah alimaamu alcumriyatiga hadda aan sheegaynay kitaabkiisa adduratu albahiya fii nadmi alajruumiya waa kii lahaa alxamdu lilaahi aladii qad wafaqa lilcilmi khayra khalqihi walituqa xataa naxat quluubuhum linaxwihi famin cadiimi sha'nihi lam taxwihi naxat iyo linaxwihi baan oga socdaa ilaahay baa mahad iskale ilaahay buu u mahad celiyey wuxuuna oga mahad celiyey inuu waafajiyey dadka kuwooda ugu khayrka badan taqwo cilmiga sharciga ah barashadiisa iyo taqwada cilmigu waxaa weeye waa yuurisu taqwa cilmi aan taqwo ku gaarsiinayninna dee cilmiba ma aha intaa markuu sameeyey wuxuu yidhi xataa naxat quluubuhum intay quluubtooda oga qasado marka macnaa qasad weeye waa macnihii luqawiga ahaa marka naxw ahaan buu u isticmaalay xataa naxat quluubuhum linaxwihina waa jihadii ee linaxwi illaah ilaahay xaggiisa ay oga qasado oo ay ilaahay addoommo u noqdaan cilmigii iyo taqwadii timaartoodii iyo midhahoodii baa sidaa noqday weeye istilaaxa naxwiyiinta naxwo waxaa la yidhaahdaa
العلم بالقواعد التي تعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية من التركيب والإعراب والبناء وما يتبع ذلك. نحويين وحي يقانان النحو أما فرنق النحو مركي تعريفين يان علمي ويه كدسا قواعد وحالو أوران فاعلك ومرفوع مفعولك ومنصوب مبتدوه ومرفوع وهكذا علمiga noocaas ah la isla yaqaanay qawaacida ku dhisan bay u yaqaanaan cilmigaasoo lagu garto kelimada luqada carabiga aakhirkeeda ahkaamta ay yeelanayso oo min at-tarkiibi ah sida iska saaran tahay iyo wal i'raab iyo wal binaa iyo wama yatabi'u dalik xagga tarkiibka iyo xagga isbabadalka iyo xagga binaha iyo wixii intaas la halmaala saasay naxwiyiintu tacriifkaasay u yaqaanaan naxwada waxaynu uga gudbaynaa mawduucuhu meesha uu ka howlgalee ka shaqeeyo cilmigan isaga ah waa xaggee waxaa weeye alkalaamu alcarabi soomaalina ma aha shiinaysna ma aha ingiriisna ma aha ruushna ma aha ee naxwadu qawaacidka iyo waxa ay kala dhigdhigaysay kala qaacidaynaysay kala babadelayso waa luqada carabiga weeye waliba luqada carabiga ee fasiix ah weeye shuufi iyo baqulak iyo shuweeh iyo allak iyo waxaasi luqa carabi ah ma aha luqada carabiga ee fasiixa ah ee luqatul qur'aan ah ayay ka shaqaysaa waayahay thamaradiisu marka maxay tahay thamaradiisu waa maxay cilmigan waqtiga lagu bixiyey kutubta laga alifay hadda la daraasaynayo intaasoo rafaaday intaasoo dhiba uu ku baxayo thimaartiisa iyo waxa laga helayo natiijadiisa wanaaggiisa iyo thimaartiisu waa maxay laba arrimood bay culimmadu u sheegaan raximahumullah kan hore waxaa weeye صون اللسان عن الخطأ في الكلام عربك oo laga ilaaliyo gafka markaad hadlayso oo nin luqadiisu toosan tahay inaad noqoto waa thimaartiisa weey midka labaad waxa weeye fahmu alqur'aani wa sunnati fahman saxiixa sunnada iyo qur'aanka in aad fahan sax ah oo saxiixa aad fahanto ayaa iyadana midka labaad uu yahay oo aysan kugu dabagadoomin waynu u tagi doonaa qofka markuu luqada carabiga uu khaldo in dadkuna ay khalad u fahmayaan mararka qaarna nusuusta si khaldan loo fahmi karo haddaad adigu si khaldan wax u sheegto si khaldan baa wax loo sheegayaa soomaalidu waxay tidhahdaa si xun wax u sheeg sixir waa ka daran yahay marka macnihii oo dhan buu kugu dabagadinayaa nisbadiisa iyo meesha uu ka tirsan yahay caymiska uu ku jiro iyo jaaliyadiisa iyo qabiilkiisa waxaa weeye min alculuumi alcarabiyati culuumta carabiga ee aynu 12 ku soo sheegnay 11 kaas kale ayuu naxwuhu la jeel yahay oo la saf yahay halkaasaa marka loo tiiriyaa oo ka tirsan yahay waadica waa kuma ama awalu man wadaca annaxwa qofkii ugu horreeyey ee naxwada dejiyo kumuu ahaa nuxaaddu waxay sheegaan qisas aad mashhuur u ah aadna u faafay laakiin xaqiiqatan sanad ahaan aan ansixin markaan leenahay sanad ahaani waxani ma ansixinna ma sugna waa arrin diin ah maxaa yeelay waxaan diidannahay diintani waxay ku dhisan tahay sanad waa ab iyo isirka soo gaadh nabigaa lagu soo dejiyey saxaabadaa ka soo xumbaartay taabiciyiintii tabicu taabiciintii wahaakadaa marka waxaan diidannahay qof walba wuxuu rabo intuu iska sheego inuu yidhaahdo waa diin hadda haddii naxwaha lagu mariyo qofkii ugu horreeyee dejiyey oo hebel buu ahaa lagu yidhaahdo sanad la'aan hadhowna qur'aanka iyo xadiidkaa lagu marin kadibna diintoo dhan baa kharribmi waana tay culimmadu lahaayeen lowla sanad laqaala man shaa'a maa shaa'a sanadku hadduusan jiri lahayn qof walba wuxuu rabo ayuu iska sheegan lahaa markaan saa leennahayna arrinkaasi muhiimka ahaan tilmaamaynaa laakiin nuxaaddu waxay sheegaan nin la odhan jiray abulaswad addu'ali in habeennada ka mida isaga oo saanqaafka gurigiisa jooga isaga iyo gabarh u dhalay ayaa gabadhii baa cirka fiirisay
cirkiyo qurux badan oo ilaahay xidigahan ku qurxiyey iyo aad bay ta'ammul iyo tafakkur ugu samaysay markaasay waxay damacday inay tiraahdo alla aabow cirku wanaag badana ama qurux badana ama maxaa ka wanaag badan waxay tiri markaasi maa axsanu samaa cirka sheegay ugu wanaagsan buu markaa ay jumladaasi macnaheedu uu noqonayaa maa axsanu samaa nuunka markii la godo aabbihii wuu jawaabay oo wuxuu yidhi annujuum xidigaha ayaa ugu wanaagsan waxay markaasi iyadiina tiri aabba saa uma aana jeedine waxaan u jeeday qorraxdeen samadu qurux badana ama maxaa ka qurux badan saasaan u jeeday oo tacajub bay iga ahayd wuxuu yidhi marka yabnatii quulii maa axsana asamaa iftaxii faaki afka fur kelimadan alfatxa halkaasay ka soo jeedaa oo waa afka oo la furo la yidhaahdo weeye alfatxa waxaa kaloo la sheegaa niman acraabiyiin ahoo carabtii hore ree baadiyahayda inay maqleen risaalada iyo diinta nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey way fahmeen way ku qanceen way soo doonteen markaasay markay yimaadeen madiina nabigu markay madiine yimaadeen nabigu markaa meeshaa ma joogin niman markaa cajami ahaa oo qur'aan akhrinayey ayay u yimaadeen nimankiioo akhrinaya fii suurati towba qowlu rabbina jalla wacalaa ina allaha barii'un min almushrikiina warasuuluh nimankii ileen carab bay ahaayeen luqada carabiga way yaqaaneen nin ka mida ayaa qiradii khalday oo wuxuu yidhi warasuulihi markaasay yidhaahdeen war annagu waxaan soo doonannay nin ilaahaygiisa ku xidhan oo ay israbaan oo uusan beri ka ahayne ma rabno mana aanan soo doonanin nin ilaahaygii soo dirsadayba uu beri ka noqday macnahaana waxaa keenaya markaad warasuulihi laanka aad hoos dhigto ayaa keenaysa oo waxay ku cadfanaanaysaa min almushrikiinada oo hadda faahfaahin badan kama gaadhneen laakiin meesha ay wax ka khariban yihiin un aan ku tuso waxaa weeye ina allaaha ilaahay barii'un weeye mid beri ka ah min almushrikiina kuwa mushrikiinta ee gaalada ah buu beri ka yahay wa rasuuluhu markaa khabaru innadaad ku cadfaysaa alla rasuulkiisana mushrikiinta beri buu ka yahay markii la godo haddii laakiin la hoos dhigo min almushrikiinta ayay raacaysaa oo waxay noqonaysaa ilaahay mushrikiinta beri buu ka yahay kow rasuulkiisana beri buu ka yahay soo markaa inay wax kharrimeen uma jeedid taasay marka ka biyo diideen ilan luqadii bay yaqaaneenoo waxay yidhaahdeen war nabi uu rasuul allihii soo dirsaday beri ka yahay dooni aan mayno ayay yidhaahdeen marka naxwaha hamaradiisa iyo midhihiisa in carabka la toosiyo oo qur'aanka si fiican loo fahmo inuu yahay sow uma jeedidoo waadixba ma aha halkaasay kaaga caddahay marka hadda haddii xitaa aanba nidhaahnaba qisadu ma sugna saan hore u soo sheegnay laakiin haddee waa wax waaqicahoo jira haddii inta laguu dhiibo makarafoon oo lagu yidhaahdo dadka wax u sheeg hadalka ina alxamdu lilaahi aad ka bilowdo waa lagugu qosli nin qolyahanagii xerta ahaa yaa laga sheegay nin un dee wuxuu arkay wadaaddadan abnaa'u saxwa cusub oo xoogay dadka wacdinaya oo naxwadana show aynan u bilownayn waana meelaha xoogay waxaa la yidhi fuleexantiisa ma mooge meelaha ay dadka mukhaalifiinta ah naga soo weerarayaan ama naga qodqodaynayaan waa inaynu iska ogaannaa weeye taa ceebna maaha arrintaas qolyihii markaa xerta ahaa ee suufiyada ahaa waxay samayn jireen marka hore naxwadaa garhka la gelin jiray aad baa loo baran jiray kadib baa fiqiga loogu xijin jiray kadibna culuumtii kore saasay ahaan jirtay waana laga yaabaa inay inooga saxsan yihiin meelaha qaar waa suurtagal marka ninkii xerowga ahaa ee naaxiga ahaa nin wadaad ahoo un min abnaa'i saxwa ah oo un isaga yaa khaylallaahi irkabi xaalkiisu uu yahay oo dacwadii iyo diintii ha la faafiyo manhajkii rasuulka ha la faafiyo yacni calalfitra ay ka tahay ayaa istaagaya dadkuu wacdinaya hadalkiibu wuxuu ka bilaabayaa marka ina alxamdu lilaah markaasuu wuxuu leeyahay alla inna ayaan daranaa waan maqlay aniga arrintaa qisadaas alla inna ayaan daranaa wa ficlanna ina alxamdu lilaahi haddaad tidhaahdo waa lagugu qoslayaa naxmadahu haddaad tidhahdana waa lagugu qoslayaa
man yahdihi illaaha haddaad tidhaahdana oo aad waaba arrin khatar ah gaallimay keenaysaa man yahdihi illaaha ninka ilaahay hanuuniyo weeye man yahdihi illaahu allah waa faacil in la godaa loo baahan yahay marka hadda haddaynu nidhaahno qisadan ina allaha barii'un min almushrikiina wa rasuuluhu ma ansixin sanad ahaan waa carrakawaa weeye aad bay u dhacdaa wakhtigan hadda aynu joogno jajabinta noocaas oo kale ah iyo gebidhaca noocaas oo kale ah iyo wiirsashada ay nagu wiirsanayaan dadkii aynu rabnay inaynu caqiidada ka saxno manhajkii rasuulka calayhi salaatu wasalaamna aynu gaadhsiinno marka ma doonaysaa manhajka rasuulka iyo qur-aanka siduu u soo degay dadka inaad u gaarsiiso oo aad daaci ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa laga doortay aad noqoto waxaad samaynaysaa ku dadaal barashada naxwaha sarfiga balaaqada iyo culuumta carabigaba intii aad ka gaadho waa si aan lagaaga garhelin dadkii salafka ahaana manhajkani waxay ku faafiyeen ay cid walba uga adkaadeen dad hubaysan bay ahaayeen musiibada dhacday waxaa weeye hadda qofkii waa nin aad u qirayso nin salafiya inuu yahay oo caqiidadiisa insha allahu tacaala ay toosan tahay naxsabuhu kadalika wallahu xasiibuh dadkii saasaad yacnii waa sunnadaa ka muuqata way aad baad oga maqsuudaysaa markaad korkaa kore aad ka aragto laakiin xaqiiqatan waa dad tobaneeyo sano saxwada ku dhex jira oo aan haddanana ajruumi laqbayn karin ama 40 aan laqbayn karin oon hoosba u qodnayn markaasaa xerownimadii iyo taalibulcilminimadii baa nuxurkii iyo nahdii baa ka tagtay wabitaali waxaa soo baxday kawaadir la'aan oo carruurtiiba alif waxmalaha wax u dhiga lala yahay marka arrintaasi in lagu baraarugsanaado weeye waa yahay waxaan kaloon oga gudbaynaa intaas xukmu shaarici fiihi naxwada in la barto xugum ahaan shareecadu maxay xukunkee qaadanaysaa sida saxiixi ah waa fardu kifaaya ummad kasta iyo mandiqo kasta iyo degmo kasta in nin yaqaano oo marjicaho loo soo noqdo uu jiro waa fardu kifaaya markaasuu dembigii dadka ka wada dhacaya haddii kale waa la wada dembaabahayaa weeye waxaa kaloo la yidhi waa waajib cala almufasir waalmuxadid walaa shaka arrinkaasna inay sidaa tahay tafsiirka qur-aanka iyo xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninka fasiraya ee dadka gaarsiinaya inuu sarfiga iyo naxwaha iyo balaaqada cala alaqal uu yaqaano waa arrin waajib ah haddii kale macaanidii buu dadka ku dabagedinayaa ibnu rajab alxambali calayhi raxmatullah isaga waxa uu leeyahay waxa uu arkaa inay waajib tahay oo ay lagama maarmaan tahay min baab maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fa huwa waajib waa yahay muqadimadii intaasaynu oga gudbaynaa waaban ku dheeraannay waxaan marka u gudbaynaa baabu lkalaami alkalaamu huwa allafdu almurakabu almufiidu bilwadci asha alkalaam ku jirto waa ashii macrifada ahayd weeye ay kalaamu naxwiyiin baa loo jeedaa alkalaamu hadal huwa hadalka allafdu hadal baa la yidhaahdaa waxaafka ka soo baxay almurakabu oo la isi saaray oo jumlo laba eray iyo ka badan la iska saaray almufiidu oo wax faa'iideeya bilwadci qasadna wax ku faa'iideeya wa aqsaamuhu qaybihiisana 3 weeye ismun magac iyo wa ficlun ficil wax dhacay wa xarfun iyo xarafkaasoo jaa'a yimid limacnan liajli macnan macno daraaddeed u yimid falismu ismigii yucrafu waxaa lagu gartaa bilkhafdi baa lagu gartaa hoos dhig iyo wixii ka naa'ib noqda watanwiini baa lagu gartaa waa 2 xarako 2 kordhig 2 hoos dhig iyo 2 godow wa dukhuuli alalifi alif gelitaankeedaa lagu gartaa ama al iyo wallaami laamtii wa xuruufi lkhafdi baa lagu gartaa xuruuftii wax hoos dhigaysay wa hiya xuruufulkhafdahana min weeye wa ilaa weeye wa can weeye wa calaa weeye wa fii weeye wa rubba walbaa walkaaf wallaam wa xuruufulqasami baa lagu gartaa wa hiya xuruufulqasamkana alwaawu weeye walbaa'u weeye wattaa'u weeye walficlu ficilkiina yucrafu waxaa lagu gartaa biqad baa lagu gartaa wasiini siintii baa lagu gartaa wa sawfaa lagu gartaa wa taa'i ta'niiti dhadigoodka ta'diisii baa lagu gartaa assaakinati ee reebnayd walxarfu xarafkiina maa baa la yidhaahdaa laa yasluxu uusan u suubanin macahu isaga maciisa daliilulismi calaamadihii ismiga walaa daliilulficli haddaynu ka gaadhno insha allah wakhtiga nagu simo halkaasaynu gaadhsiinaynaa waa yahay alkalaamu sida uu musanifku sheegay waa kalaamkii naxwiyiinta
laakiin kalaam luqawiyiintu waxay kalaam u yaqaanaan baa jira. kalaam maxaa la yidhahdaa luqatan xagga luqada? xagga luqada kalaam waxaa la yidhaahdaa maa nutiqa bihi wa afaada faa'ida, wixii lagu hadlo ee wax faa'iideeyaa kalaam la yidhaahdaa. wixii lagu hadlo ee wax faa'iideeyo ayaa kalaam la yidhaahdaa. halkaa nutiqadaas ahlu kalaamka iyo dadka mubtadicada ah iyo qolyahan falsafada ee hadalka isdaba marmariya wax kala warwareejiya ma ay jecla. maxaa yeelay iyagu waxay wataan tacriif ah kalaamka waxaa la yidhaahdaa maa afaada faa'ida, wixii wax faa'iideeyo ayaa la yidhaahdaa. waana dagaal bay ku jiraanoo dee adduunka xarbu haqaafaad wax la yidhahdaa ka socda. waa dhufays baa la isugu jiraa. laakiin maxaad ka rabtaa? iyagana dhufays baa loogu jiraa. walle waxay rabaan hadhow inay kuu hoosgeliyaan fa asarahaa yuusufu fii nafsihi walam yubdiha lahum. wixii kalaamu nafsigii iyo cilmu nafsigii iyo wixii ay sheegi jireen oo hadhow ay gacmayn jireen kalaamka rabbulcaalamiin iyo sifaadka rabbulcaalamiin iyo asmaada ilaahi subxaanahu wa tacaala ayay rabaan inay kuu hoosgeliyaan. oo waxay rabaan inay ku yidhaahdaan soo miina odhan jirin tafsiirka wax lagu fasiro ee luqada carabiga ayaa ka mid ah. waana nacam markii afarta tafsiiree kale haddii la waayo qur-aankii iyo xadiidkii iyo haddii afartii tafsiiree ka horraysay la waayo in luqada carabiga loo noqonayo waa arrin sax ahoo salafkii ay qabaan. laakiin ma aha in yacnii tafsiir dad yacnii ahlu bidaca ama tacriif dad ahlu bidaca laga soo naqliyey isagu arrinka meesha kuma jiro. yaana lagu hoosgelinin. marka inaad digtoonaato ayaa lagaaga baahan yahay. oo hadhow nin hadduu kuu yimaado mubtadicoho ku yidhaahdo arrinkan kalaamku waa shay macnawi ahoo ilaahay baa nebi jibriil baa ka soo miinguuriyey ilaahay oo macnihii buu soo tarjumay, arrinka inaad yeesho ma aha. oo hadhow iyaguna ay deliilkooda uu noqdo waa tacriifkii luqawiga ahaa oo maa afaada faa'ida. waxaad leedahay ma ahee kalaamka luqa ahaan waxaa la yidhahdaa maa nutiqa bihi wa afaada faa'ida, wixii lagu hadlee wax faa'iideeye ayaa la yidhaahdaa baad leedahay. istilaax ahaanna waxaa la yidhaahdaa kalaamka waxaa la yidhahdaa siduu musanifku sheegay alkalaamu huwa allafdu almurakabu almufiidu bilwadci weeye. allafd afartaa shardi ee lafdi ugu horreeyo wixii laga helo ayaa kalaam la yidhaahdaa. wixii aan intaa laga helin kalaam cinda nuxaad kalaam lama yidhaahdo. allafd maa nutiqa min allisaani almushtamili bisawtin wa xuruufin weeye. wixii lagu hadlo oo sawd iyo xuruuf kulansado. kelimadan allafd asal ahaan waxay ka soo jeedaa timirta markii afka la geliyo oo wixii aad laqi kartana la liqo, laftana ile lafta ma laqi kartida la soo tuuro, halkaasay ka soo jeedaa. kalaamkuna marka waxa carabka afka ka soo baxay carabka looga hadlo weeye. sawd iyo xuruufna wuu leeyahay. halkaa waxaa ku baxay kitaabadii, qoraalkii iyo ishaaradii iyo waxaan reebaadiyuhu annusub ay yidhaahdaan. oo reebaadiyuhu waxay samayn jireen markay guurayaan sahan baa ka horrayn jiray. sahankaasi marka meel carrasan ahoo la degi karo oo xoolaha la dejin kara iyo maatada iyo maxasta ayuu isagu soo fiirin jiray oo ceelalyuu ahaa oo kale maalan. ninka isagaa marka ileen moobiil iyo internet iyo wax lagu wada hadlo ma lehee muxuu samayn jiray? wuxuu samayn jiray markuu rabo inuu dadka u sheegay inuu xaggan bidix u leexday ama xagga midig u leexday, meeshuu u leexday buu xariijin buu xaggeeda u taagi jiray. nusub baa la yidhaahdaa. magaalo markii la yimidna dee waxaa booskeedii gelaya tabeelayaashan iyo waxyaabahan hadda halkaa waa jidkii tareenka, halkaa waa jidkii basaska, halkaa waa jidkii baabuurta caadiga, halkaa dadka lugta aha mara, halkaa waa meeshaasay naga jirtaa, magaalo heblo waa xagga intaasoo kilomitir bay noo jirtaa. waxaasoo dhan waa wax la isku fahmo. laakiin kalaam ma aha. mar haddayna sawd iyo xuruuf lahayn kalaam lama odhan karo. intaasaa ku baxaysa marka kitaabadii iyo ishaaradii iyo nusubtii iyo waxyaabahaasaa ku baxaya. almurakab waa isna shardi ka mid ah min shuruudi alkalaam. macnihiisuna waxaa weeye hadda wuxuu u jeedaa horta tarkiibkii isnaadiga ahaa ee tarkiibka qaybihiisii kale sida cabdullaahi iyo uma uu jeedo. tarkiibkii iska saarnaa jumlada ama ficil iyo faacil ama mubtada iyo khabar. mubtada iyo khabar markuu iska saaran yahay mithaalkeedii wuxuu noqonayaa muxammadun qaa'im. waa mubtada iyo khabar. waana
jumla ismiya la yidhaahdaa sidoo kale qaama zaydun waa jumla ficliya waxayna ka kooban tahay ficil iyo faacil jumladaasi ama mid sidaa loogu hadlay ha noqoto ama mid ku qadaran ha noqoto sida maalan haddaan ku idhaahdo qum yacni oon adiga kula hadlayo adigaan ka wadaa qum anta baan ka wadaa marka anta waa damiir ku hoos qarsoon oo meesha la niyeysanayo laakiin hadda waxaa lagu hadlaya waa qum marka qum ama qumtaas waa faacilkeedii wuu qadaran yahay ama waa la niyooday hoosta wuu ku hoos qarsoon yahay marka haddaan hadalka soo gaabiyo waxaa weeye tarkiib waxaa la yidhahdaa jumladaasi ama mid lagu hadlay ha noqoto ama mid qadaran ha noqoto waxaa ku baxaya markaa shardigaas ama murakabka waxaa ku baxaya kelimaadkii goonigoonida u taagnaa iyo xuruuftii kale ayaa ku baxaysa almufiid waa mid wax faa'iidaynaya oo isagoo carabka looga hadlay jumlo ahoo isi saaran oo aan kelimaad ahayn ayaa haddana waxaa shardi ah inuu wax faa'iideeyo almufiid maxaa la yidhaahdaa maa afaada faa'ida wixii wax faa'iideeyaa la yidhaahdaa bixaysu yaxsunu sukuutu calayha qofka min almutakallimi wasaamici qofka aad la hadlayso ama kan ku dhegaysanaya ee maqlaya in shay uu kaaga aamusayo oo kaaga qancayo macnaheedu waa inaad faa'iido siisay weeye inaad faa'iido aad siisay ood faa'iido u sheegtay baa laga wadaa maalan amhiladii haddaan sheegaynay qaama muxammadun baa tidhi waa afkaa looga hadlay waa lafdi waa murakaboo waa jumla waa mufiidoo muxamed inuu istaagay baad faa'iidaysay taasaa mufiid laga wadaa waxaa ku baxaya marka jumlooyin badan oo fara badan haddaad sheegto laakiin aadan waxba faa'iidaynin sida maalan in qaama zaydun haddaad tidhahdo oo kale zayd hadduu istaago heebuu kudhihi qofkii ku dhegaysanaya waxba umaada faa'iidaynin ama waxaa tidhi idaa xadara alustaadu hadduu macallinkii yimaado heebuu kudhihi qofkii ku dhegaysanaya waxba umaada faa'iidaynin wain kaana inaad waxaad ku hadashay uu jumlo yahay oo xadara alustaadu waa ficil iyo faacil marka waa inaad jumlada aad ku hadashay waa inaad wax faa'iidaysaa bacduulculamaaba waxay leeyihiin faa'iidadaasi waa inay noqotaa faa'iido cusub oo waxay leeyihiin assamaa'u fowqana faa'iide ma aha laakiin sida agtayda raajixa ka ah waa faa'iido qofka dee inay samadii korkeenna tahay buu kuu sheegay waa arrin kale inaad tidhaahdo qofkii wax la ogyuhu ku hadlay iyo waxaan macno lahayn buu ku hadlay iyo waa arrin kale laakiin wax wuu faa'iideeyey marka halkaana waa faa'iide kaleoo bacduulculamaaba waxay ku daraan faa'iidadaasi mid cusub waa inay noqotaa bilwadci qasadna wax ku faa'iideeya laba macnaa loo sheegay labadana waa laba macno aad u qiimo badan midka hore waxaa la yidhi qasad wax ku faa'iideeye waa inuu hadalkan isaga lagu hadlay ee carabka ka soo baxay isi saaran ee jumlada ah mufiidka wax faa'iideeyey waa in dan laga leeyahay dan markaa meesha ku baxaya waxaa ku baxaya qofkii ilmihii yaraaye hadaaqayey qofkii qarwayey kii dheelalaabayey iska socday majnuunka hadalkiisii waxaasoo dhan baa ku baxaya qasad waa inuu wax ku faa'iideeyaa macnaha kalena waxaa weeye alcarabiyata yacni bilcarabiyati bilwadci ay bilcarabiyati waa inuu wax ku faa'iideeyaa oo waxaa weeye luqada carabiga madluulaad iyo macaani bay leedahay xadara xa'dan iyo daadkan iyo ra'dan waxay carabtu u isticmaalaan almajii qofku markuu yimaado inaad haddaad tidhaahda marka xadara alustaadu ustaadkiibaa musqusha galay carabtu way kugu qoslayaan oo hadda waxaan maqalay ma aha bay ku leeyihiin marka faa'iidadanna waa inay noqotaa faa'iido luqada carabiga macruufka ah oo carabinimo wax ku faa'iidaynaysa waa inay noqotaa afartaa shardi in la xifdiyo oo la ogaado waa lagama maarmaan waxaynu uga gudbaynaa aqsaamulkalaam hadalkaa isaga ah ee aynu saa u soo qeexnay qaybuu leeyahay qaybihiisa marka waa maxay ismun wa ficlun wa xarfun baan nidhi waa magac iyo ficil iyo xaraf weeye luqada carabigu ama cinda naxwiyiina kalaamku intaasu u qaybsamaa bal waxaa la dhihi karaa xaqiiqatan luqo oo dhan baa sidaa ah xoogay waa xagga macaanidaha lagu kala duwanaada laakiin luqadu waxay ka kooban tahay fal dhacay waa ficil iyo fal sameeyihii waa isim faacilkii weeye iyo xaraf
اسم إيا فعل إيا حرف فل إيا فلسمية إيا اسكو حرق مركا اسم محال يراهدا فعل محال يراهدا حرف سمحال يراهدا وينو ددجينينا وقتي با خوغي غبا اسم وحال يراهدا لقاهان ما دل على مسمى مقع وحي كتوسيا اسم لقاهان يراهدا اصطلاحا وكلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان وضعا كمحمد كلمة معنى كتوسيسا نفت هذا كاتوسيسا وقتي أنا لا حرير سنين أيا ليرادا سيدا محمد أو كلام محمد مركي لو يراهدو وانين مقعي واكو نينكاسي مقعيسا محمد إن ليراهدا كتوسيسي نفت هذا كاتوسيسا يو ميل كليا كلماتي يو ماذا أباهنين وقتي أنا على أقل ما لها اسم كاسا ليرادا فعلنا لقاهان الحدث باليرادا دعضو اصطلاحهان وكلمة دلت على معنى في نفسها انت وحوغيها اسمك كلمة معنى كتوسيسي نفت هذا كاتوسيسي maxay isagii isimka ku kala duwan yihiin waqtaranat biaxad alazminati athalathati wadcan ka daraba oo kale waqtiga ayaa saddex qaybood u qaybsama waqti tagay iyo waqti lagu jiro oo joogo iyo waqti soo socda maadi iyo xaala iyo mustaqbal baa la yiraahdaa marka ficilka waxaa la yiraahdaa saddexdaa waqti wixii xiriir la yeesha sida daraba waa waqti tagay يضرب ووقت هذا اللي جيرو اضرب ومستقبل وقت سو سocdo way luqa الاصطلاحنا فعل كساسا لو يقانا اسا حفظي تعريفته inaynu xifdino waa laga maarmaan waayo hadhow wax badan baa ku xiran xarafka isaga luqahan atarf baa la yiraahdaa waa geeska ama dacal bal geeska weeye ama dacal اصطلاحنا waxa la yiraahdaa ma dalla ala ma'nan fi ghayrihi ولم يقترن بزمان waxaa weeye waa wax ku tusiya macno غayrkiina kaa tusiya isagu kuma tusinaya macno naftiisa kaama tusinaya sida labadii hore wax waqti ana calaaqalla ma laha sida maalan calaa oo kale calaa hadda macaanideeda waxaa weeye ama macnaha ay ku tusinayso waa korayn laakiin iyada lafsadeeda markay gooni u taagan tahay kuma tusi karto oo calaa korayn ma dhihi kartid goormay ku tusaysaa في غيرها markay iyada غeyrkeed la xiriirsato oo ay ismigii la fangasho ayay غeyrkeed bay macna ka tusinaysaa على الأرض dhulka korkiisa way على العرش carshiga korkiisa way marka ay غeyrkeed la fangasho ayay macno ka tusinaysaa isdilaaxaadkaas ismiga iyo ficilka iyo xarafka ay leeyihiinna halkaas aynu uga gudbaynaa waxaynu ku xijinaynaa calaamaatul ismi kalaamkii tacriiftiisii soo sheegnay waxaa qaybihiisina soo sheegnay mid walba markaa wixii lagu garanayay sumadda u ahaa inaan sheegno ayaynu ku xijinaynaa waana tartiib aad yani u qiimo badan ee uu musanifku sameeyey calayhi raxmatullah فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض بنيري وحروف القسم حروف الخفض مركو تريا كدبنا حروف القسم كينا ونوغو خجي اسمك waxaa lagu gartaa afar calaamo u sheegay khafdo tanwiin laba xarako alif iyo laam wa dukhul alif wal laam wa alna wadihi kartaa wa khilaaf yaro lafdi oo u dhaxeeya albasriyiinta iyo kuufiyiinta labada qolo waa laba madaraso caan ah nuxaada meelaha ay u noqdaan way ama ay wax ka soo xigtaan marka waa laba qolo oo la isugu dawgalay xaqiiqdii aad iyo aad bay dhufays isugu jiraan khilaafaad badan oo u dhaxeeyana waad maqli doontaa marka kuufiyiintu waxay leeyihiin al ma basriyiintu al bay leeyihiin oo waxay cuskanayaan qaacida ah kelmad kasta oo laba eray iyo ka badan ka kooban waa in sideeda loogu hadlaa sida min hadda al iyo min laba mid walba laba xaraf ka kooban tahay كوفيينتنا waxay leeyihiin maye magacooda loogu dhawaaqo al-alif wal-lam hal yiraahdo leesh ashan wa hamzatul wasl oo tasqud inda al-idraaj bay leeyihiin hamza weeye waana markii wasliga la akhrinayo ama way dhacaysaa marka ereygan laam ahaan baa loogu talagalaya marka khilaafkaas yare lafdiga laakiin insha Allah ha u bixin alif laanta ayaa lagu gartaa ismiga marka xuruufta waxoos dhigtana waa lagu gartaa حروفta dhaartana waa lagu gartaa xuruufta waxoos dhigta waa min iyo ila iyo ala iyo fi iyo ruba iyo alkaaf iyo allam weeye
إلى آخره وسديد حروف تدارتنا وصدح والواو والباء والتاء طيب حروف تا وحا أي قلان خفضة وحي أي قشو خفضة إنك بلونه خفضة وحي أي قشو واسم برجل رجل واسم بان لنا محايا لخفضة قشي تنوينتا رأيت رجلا تاسي واسم محايا لي تنوين باقشي الرجل واسم بان لنا أما الفرس أما الشمس واسم محايا لي الباقشي حروف الخفض قنوا من إلى على من القاهرة واسم محايا لي من باقشي ألف لانتي هذا صوبرنا واقشي كسرنا واقشي أما خفضة انت بواقشي حروفتي قسم كان والله بالله تالله دي ويه ان وحي اي قلان الله ذاس اي قلان واسم بان لانهي ولا شك ان اسم الهي تهي هذا لكن نحوان markaynu ka hadlayno waxa gashay حروف القسم ka calaamadaha markii la sheegayo inay ku jiraan shardi ma aha inay aqbali karaanna calaamay u noqonaysa inay hadii la geliyo ay yeelayaan oo ay aqbalayaanna iyadana calaamay u noqonaysa طيب خفضدي يا مثال كيدي شيغني تنوينتي يا مثال كيدي سدو كله الف لانتي يا مثال كيدي حروف الخفض كان مركب معاني غوني اي كتسيان ميمتو باللو ميل waxa ka bilowdeen ilaadu meel wax ku dhamaadeen antu mujaawaza meel yani laga tago la dhaafo laga gudbay alaada lil isticlaa fiida lil iskarayn yani kor bay ku tusinaysaa fiidu lil darfiya gudo meel ama meel ugu dhex jiray ku tusinaysaa ربدا وتقليل إيا تكثير بفائديسا حسب السياق كافكو تشبيه لامكو ملكية استحقاقية نوي فائديسا بعضنا سببية إيا استعانة إيا معاني بدن بيلاده مركو حروفتو معاني بدن بيليهين لكن متكم إذا أيينو شيغينا مع هل معنو شيغينا مثلا مثال كي دقيسو سافرت من القاهرة إلى المدينة من إيا إلى بعض جملة سكوتشرة منت سفر كاد إنه قاهرة كباللوضي بيت يمنت فائدينيسا وكذلك إلى سفر كاد إنه مدينة كل ماضي أي فائدينيا القاهرة المدينة بوالبا اسم وحان اللغو قرنيا على مدى هاسي فرض بدنا كم مغضى اسمك اللغو قرتو عنت وحال هذا رميت السهم عن القوس واسم محايا لي عن باقى الشيء ألف لان نوي قرشي هوصيق نوو قري إن على ثم استوى على العرش قاسي واسم محال قرنيا على باقى شيء النوي قشي كسرنا ويقشي في دون سيدو كله وأنتم عاكفون في المساجد واسم محايا لي في باقى شيء وحرف جرأة الباقى شيء إن ظرفية وحان صلاة شيئين إن معاني ذا كفهمتان ويه في المساجد إن المساجد ده مسجد كجوديسة أي يفيد فائدين سواء ظرفية رب رجل كريم لقيته nin wanaagsan oo la kulmay badana taqliilna way faa'iideysaa takthirna way faa'iideysaa ama rubba rajulin nin yara kariimin wanaagsan oo laqiitu aan la kulmayna waa dhihi kartaa marka rajulin iyo kariimin waa laba magac rubba ayaa gashay kaafkuna waa litashbiih zaydu ninka zayd la yiraahdo kal asadi waa libaaxa oo kale laamkuna milkiyu faa'iideeya almaalu li ahmad xoolahan ahmad baa iska leh ama almulku lillah استحقاقيا ويفايديسا سيدا الحمد لله وكله بعض سببيه يستعانين كشيغني مطرنا بفضل الله فضل قاسي واسم محايا لي بابا قشي وانا سببيه فضل الهي سببتي سان لوغو روبيه وان روب اله نغو سييه مرنا استعانه نقطه ومرك ادوات كلا استعماليه الله اي قشو سيدا ضربت بالعصا كتبت بالقلم او كله وايهي حروف القسم كان مثلدودي وحاويه والفجر ووي الفجر واسم واو القسم باقى شيء كسرنا ويقى شيء ووداسي اسمك الظاهر كاهو كليه قشاه اسمك الظاهر كاهو كليه اي قشاه والفجر والليل والشمس والضحى وهكذا بعض وحي قشاه اسمك الظاهر كا يا اسمك الضمير كا لبضب وي قشاه سيده بالله يا وبك او كله الهي markaad ku dhaaranayso billahi nawadii karta bika allah adoo jeeda nawadii karta marka allah iyo bika iyadana bacdaasi ayaa sheegaysa inay asmaa yihiin وهكذا تأضنا لفظ الجلالها بس يقشاء يا الرحمن تالله لأكيدن أصنامكم أو كلا أما تالرحمن أو كلا مرك تالله يا تالرحمن أسماء إلهي إن يهين النقانو كسكو وحدكو قرنيسا
ta'daasaa maanta kuu sheegaysa faa'ida musanifku wuxuu sheegay 4 calaamadood inuu ismigu leeyahay laakiin wuxuu ka tegey 2 calaamadood oo muhiima iyagana labadaasna waxay kala yihiin al-isnaad iyo wan-nidaa shay kasta oo wax loo tiiriyo waxaa tiri maalan hadda qaama muxammadun muxammad baa istaagay istaagiddan markaa lama sheegi kara haddaan muxamed loo tiirinin qiyaamkan iyo istaagiddan lama sheegi karo haddaan muxamed loo tiirinin tiirintu kama maarmo weeye marka isnaadkana waa lagu gartaa nidahana waa yeerid iyo dhawaaq wax kastoo loo dhawaaqo oo hebelow la yidhaahdo waa isim weeye ibnu maaligu waa kii lahaa bilxarfi waaltanwiini waannidaa wa'al wa musnadin lilismi tamyiizun xasal waayahay intaa waxaan uga gudbaynaa calaamadihii ismiga waxaan ku xijinaynaa calaamadihii ficilkaynu ku xijinaynaa in sha allah ficilka waxaa lagu gartaa buu yidhi musanifku qad iyo siin iyo sawfa iyo taa'i ta'niidi asaakinati 4 calaamado ee u sheegay qad ficilkii horta waa 3 qaybood ficil waqtigii baaba 3daa qaybood aha soo ma aha ficil maadi baa la yidhaahdaa oo waqti tegey buu dhacay ficilna mudaaric baa la yidhaahdaa oo hadduu joogaa ficilna amar baa la yidhaahdaa waa mustaqbal waa yahay qad kelimadan la yidhaahdo ama calaamadan qad la yidhaahdo waxaa mushtarak ku ah maadiga iyo mudaarica labadaba way gashaa maadiga markay gasho miaalkeedii wuxuu noqonayaa qad aflaxa almu'minuuna aflaxa waa ficil maxaan ku garanaynaa qad baa gashay haddaad aflaxa keliya aragtana waa ficil baad dhihi maxaa yeelay way aqbali kartaa oo haddaad qad gelisa way kaa yeeli waa yahay maadiga markay gasho qad waxay 2 macnay faa'iidaysaa taxqiiq iyo taqriib yacnii sugid la sugayo inuu ficilkani xaqiiqo yahay iyo taqriib inuu ficilkani soo dhowaaday qad aflaxa almu'minuuna waxaa dhaba mu'miniintu inay liibaaneen waa sugid la sugayo liibaanta mu'miniintu inay wax xaqiiqo ah tahay markaad leedahay qad gharubat ishamsu qoraxdii baa dhacdayna ay yacni waxaa weeye waxaa dhowaaday dhicitaankeedii weeye mudaarica markay gashana miaalkeedii wuxuu noqonayaa qad yanjaxu almujtahid qofka ninka mujtahidka inuu dadaalo ayaa badan takhiir bay ku tusinaysaa waqad yajuudu albakhiilu ninka bakhiilka inuu wax baxsadaa la arkaana taqliil bay faa'iidaynaysaa labadaa macnoba way faa'iidaysaa takhiir iyo taqliilna mudaaricay ka faa'iidaysaa taxqiiq iyo taqriibna maadigay ka faa'iidaysaa marka almujtahid yanjaxu iyo yajuudu waa ficil baynu leenahay maxaa yeelay qad baa gashay ama way aqbalayaan ayib siinta iyo sawfa labadoodaa waxay khaas ku yihiin mudaaricay khaas ku yihiin weliba mudaaricu 2 xaaluu noqdaahoo 2 arrimood buu ku tusiyaa xaalo ficil hadda dhacayo iyo ficil mustaqbaloo hadda kadib dhici doona ficilkii mudaarica xaalanimada intay ka qaadaan bay istiqbaal u wareejiyaan marka istiqbaalkaana way sii kale xeel dheer yihiinoo sawfada aad u sii fogaysa oo qiyaamaha iyo waa dambe iyo waa fog markii laga hadlayaa sawfa la isticmaalaa miaalka sayaquulu weeye assufahaa'u sayaquulu waa ficil baynu leenahay maxaa yeelay siin baa gashay sawfa taclamuuna waa ficil mudaaric baynu leenahay maxaa yeelay waxaan ku garanaynaa sawfadaa gashay marka siinta iyo sawfadana mudaarica ayay khaas ku yihiin waa yahay taa'u ta'niidka assaakinati ee reebnayd waxay khaas ku tahay maadigay khaas ku tahay markaan leenahay waxaa weeye horta taa'u ta'niidkan assaakinati buu yidhi ee reebban taa'u ta'niidkii kaleen reebbanayn buu meesha ku saarayaa sida shajaratun iyo baqaratun iyo faatimatu iyo qolyahaas ayuu saarayaa ta'dan marka waxay ku tusinaysaa faacilka ficilkan sameeyey inuu qof dhadiga yahay qof dhadiga ficiluu sameeyo mudaarica markaad samaynayso horey bay ka gashaa oo tafcalu baad dhihi qof dhadiga ficil markaad la hadlayso amarkana waxaad dhihi quumii iyo amarkana gadaal bay ka gashaa laakiin maadiga waxay ka gashaa iyadana gadaal ta'daas reebban weeye reebbanaantaasu waa asalka qaalat caaisha waxay tidhi wa qaalat cajuuzun caqiim qur-aanka waatay ku jirtay qaala waa ficil maxaan ku garanaynaa taa'u ta'niid baa gashay wayna reebban tahay asal ahaan
marar la xarakeeyaa jirta waana marka aliful ithnain uu gadaal kala xiriirsado sida qaalataa ataynaa taa'iciin oo kale iyo marka laga cararayo iltiqaa'u saakinayn laba xaraf oo reeban laguma wada hadli karo qaala tikhruj calayhinna oo kale qaala tikhruj yacni kelimadaas iltiqaa'u saakinayn baa laga cararaya qaalatil acraabu oo kale isna iltiqaa'u saakinayn baa laga cararaya taa'u ta'niith assaakina maadiga ayay khaas ku tahay oo calaamo ay u tahay faa'ida wuxuusan musanifku sheegin calaamado lagu garto ficilka amarka waana talab iyo inuu yahay almu'annathati almukhaatabati uu aqbalayo iyo nuunu tawkiidka weeye kutubta kale aynu ku akhrisan doonnaa laakiin faa'iide ahaan u sii haysta amarka calaamadihiisa inuu talab ku tusiyo qum oo kale qum inaad istaagtaan kaa dalbayaad talabkaasi waa calaamo amarka lagu garto yaa ulmu'annathati almukhaatabati inuu aqbalayo oo quumii iyo irkaci iyo isjudii iyo inuu aqbalayo ama ay ku jirtaba calaamadaha ficilka amarka lagu garto weeye nuunu tawkiidkana waa qumna labadiisii qaybood alkhafiifati waathaqiilati intaasna aan oga gudubno ficilka iyo calaamadihiisii waxaan ku soo gabagabaynaynaa calaamaatulxarfi xarafka calaamadihiisa xaqiiqatan haddaa la soo gaabiyo waxaa weeye xarafka calaamadihiisu waa sumad la'aan waa caddaysimo weeye wuxuuna yidhi musanifku walxarfu maa laa yasluxu macahu daliilu lismi walaa daliilu lficli calaamadihii ismiga wixii laga waayo calaamadihii ficilkana laga waayo ayaa xaraf la yidhaahdaa mithaalkiisuna waxaa weeye xa iyo jiim iyo kha waa saddex xaraf oo isu eg jiimkuna wuu hoos dhigan yahay kha'duna way kor dhigan tahay xa'duna calaamadeedu waa sumad la'aan marka xa haddii meel lagu dhigo oon dhibic lagu dhigin haddii lagu yidhaahdo garo oo ma jiim baa mase waa xa mase waa kha markiiba waad garanay xa tahay calaamad la'aan weeye saaxibu ملحة الإعراب وكيلها والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكون علامة حرفك وحال إذا كان علامة اللهين علامة دي سنة والسمد الآن فقس قولي على تكون علامة وكيلها شيخ الحريري مركا علامة دي سوى والسمد الآن عدي سموي يسيدا إنو صور شيخني ساسا إنو مركا ورنينا بمعنى وحاوي حرف كيبات قادي waxaad u bandhigi calaamadihii ismiga haddaad ka weydo waxaad u bandhigi calaamadihii ficilka waad ka weyday markaasuu wuxuu ku caynoobayaa xarafnimo hadda maalan aynu soo qaadanno maalan hal oo kale calaamadihii ismiga oo dhan la soo wareeg ku fiiri hal ma dhihi kartid hali ma dhihi kartid xurufuljarkii xurufulkhafdihii ma geli karaan wahaakada la soo wareeg adugu ku fiiri kaama ay yeelayso wa sidoo kale calaamadihii ficilka oo dhan qad hal iyo sahal iyo sawfa hal iyo kaama ay yeelayso marka calaamadiisu waa calaamad la'aan weeye xarafkaasaa markaa wuxuu u qaybsamaa xaraf yacni mushtarag ahoo ficilka iyo ismiga ay wadaagaan mid ismiga gaar ku ah mid afcaasha gaar ku ah xarafkiibaa markaasi qaybo yeelanaya laakiin isagana mithaalkiisu waxaa weeye min oo kale ama hal oo kale ama calaa oo kale wahaakada marka calaamadiisu waxaa weeye calaamad la'aan sidaynu soo sheegnay intaasaynu maanta darsigeennii ku soo gebagabaynaynaa wa ilaa darsina alqaadim atrukukum bixifdi illaahi wa ricaayatihi wasalaamu calaykum